Assalaamu calaykum. Haweeneyda surwaalka Hargeysa ku dhex martay. 2 casho ka hor waxaa suuqa Hargeysa lagu arkay gabadh sida ragga sidata shaar iyo surwaal, taas oo sida dadka caadiga ah dhex socota bulshada. Dadweynaha ayaa si wanaagsan uga dhiiriyay oo damiirkoodu aqbali waayay waxa ay arkaan, waana ay ku mahadsan yihiin dhiirigelinna waa ay mudan yihiin. Gabadha waxaa gacanta laga geliyay ciidanka booliska. Intaasi waa dhacdadii dhacday. Marka aynu dhacdada ka nimaadno, aynu u nimaadno fariinta ay dhacdadu gudbinayso. Maxaa loo geeyay saldhigga? Saldhiggu waa goob sugta qofka amnigiisa, una sheegta faldambiyeedkiisa. Taasina macnaheeda iyo mucdeedu waxa weeye in qofkan waddanka dhexdiisa gefka ku galay ay iyagu la xisaabtamaan, ganaaxiisana ay u sheegaan. Dadweynuhu iyagu ma aha kuwa wax xisaabiya, waxa ay leeyihiin wax sheeg, iyo qofka ay gef ku arkaan in ay la taliyaan oo u sheegaan sida ay waxani sax ku yihiin. Wixii intaa dhaafsiisan oo aanay iyagu waxba ka qaban karinna ay u gudbiyaan dowladda ay shacabkeeda yihiin. Waxaa jira dadyow dhacdadan uga hadlay qaab waafaqaya dhaqanka ay dadku diideen oo gabadha Hargeysa surwaalka ku dhex maraysay taageeraya, iyaga oo ay dadka ka mid ahayd inantan leh sidan: surwaal baad ka hadlaysaane, haddii aan nigis magaalada ku dhex maro, nigis waa in aan helaa sharci, xeer idifaacaya oo nabadgelyadayda damaanad qaadaya. Iyo qaar kale oo iyaga in aan magacooda iyo muuqooda idin tuso aan idinkala hanweynahay oo horkeenidooduba gef tahay. Marka aynu intaas isla aragnay, waxaa muhiim ah in aynu dhowr qodob isla fahanno. 1. Waa muhiim in aynu maanka ku hayno cidda aynu nahay, oo ah in aynu nahay bulsho muslim ah. Dadka adduunka ku nool waxaa jira wax ay cid walba ixtiraamto oo ay ka dambayso. Ma jirto wax ka weyn diintooda sida ay u ixtiraamaan oo ay uga dambeeyaan. Innaga oo alle mahadii haysana taariikhda diin la aamino tii ugu saxsanayd, uguna qiimaha iyo qaayaha badnayd, waxa waajib ah in aynu ixtiraamno oo ka dambayno diinta aynu haysano, innaga oo raacayna amarkeeda kana tagana diidmooyinkeeda. Taas waxa aan ka wadaa xidhashada ay gabadha muslimadda ahi xidhato dharka raggu waa mid diinteennu ay diiday. Innaga oo og surwaal aan wax ka sarrayn oo dadka lagu dhex maraa in ay tahay labiska ragga, sidaa marka la leeyahay macnaheedu ma aha in ay diintani tahay complex, wax ka kan oo adag. Maya, sidaa ma aha. Cidda ay danteeda wado ayaaba ah haweenadan ay diintu leedahay xijaab qaado. Inaga oo muuqaal gaar ah ka samayn doona xijaabka, halkaana ku keeni doona wax allaale iyo wixii la xidhiidha, xitaa dadyowga xijaab ka weerara waxyaabaha ay dhahaan saarkooda. 2. Waxaa jira dad markasta cadow ku ah diintan iyo amaradeeda. Dadkaasi waxa ay u qaybsamaan 2: dadyow inala dhashay, kuwaas oo inala wadaaga midabka iyo muuqa, iyo dadyow inaga dibad ah oo aan inala dhalan, hase ahaatee dhagarta inoo maleega. Marka waa in aynu markasta maanka ku haynaa in hablaheena la rabo in ay xoobsiibtaan oo ay iska dhigaan wax kasta oo diin ku aroora. 3. Waxaa jirta qaacido weyn oo ah in dadyowga muslimka ah laga dilo anshaxa, kadibna diintu iyada ayaa iska dhimanaysa haddii lagu guulaysto dilidda damiirka iyo liicintiisa. Marka markasta oo aynu aragno in la liicinayo, hoosna loo dhigayo anshaxa iyo akhlaaqda dadka, waa in aynu ka hor nimaadnaa oo aynu diidnaa, innaga oo ku adkaynana dhaqankeenna suuban. Waayo haddii aynu sahashanno sidii aynu soo sheegnay, waxa ku xiga u soo tafaxaydashada gowracidda diinta. 4. Waxaa laga yaabaa in ay dadka qaar ku doodaan, miyaanan anigu ama qofku xor ahayn oo samayn karin wixii uu doono iyo sidii ay la noqoto. Haa, xor baynu nahay oo cid aadami ah oo aynu addoommo u nahay ma jirto. Isla markaana addoommo ayaa aynu nahay oo Allaha ina abuuray ayaa aynu addoommo u nahay.
marka wixii diin iyo sharci ah ma laha xorriyad aynu ku jeesjeesi karno oo ina siinaysa in aynu ku ciyaarno inaga oo baalmarayna qaarkeenna ay la dagaalamayaan. sababta aynan xorriyad ugu lahayn in aynu wax walba samayno waxa weeye in diinteennu ay ka talisay danta qofka iyo qarankaba. waxyaabaha ay u jidaysana ay dhammaantood yihiin wixii ay labadooda qofka iyo qaranku ku hagaagayeen. marka diididda waxa ay diintu ku faraysaa waa diididda danteenna. ugu dambayn, dadkani waa dad leh dhaqan suuban iyo diin bilaa surmaseegto ah ee cid kasta oo labada la dagaalamasa waana buuxi ha laga qabto oo qof walba dadkiisa dacal iyo doc aan looga soo dhici karin ha u galo. ummadaad ka dhalateen eel bay la jiiftaa taaha ay la daysee mid kastauba aagee iriddaad ka gelilayd. magacaygu waa Sakariya Haaruni, halkanina waa Haaruni Media. inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.